إنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت. الله نحريستو ولكن دكتور حسن عثمان أو عيسى لو يقاني دكتور بورane oo shalay lagu dilay muxuu ahay magaalada Muqdisho ku geeriyooday oo gacan ka caqdaranay dishay. runtii aad baan ugu tacsiyeenaynaa, waxayna ahayd geeri aad iyo aad u taabatay bahda caafimaadka guud ahaan, gaar ahaan bahda dhakhaatiirta. waxaan leenahay Allah u naxariisto, qabrigiisina Allah waasiciyo, jannadina Allah geeyo, gadaashina ilaahina ma fidneeyo. haddaan wax ka sheego Dr. Xasan Buurane wuxuu ahaa dhakhtar. horta waxaa la dilay maalin soon ah oo weliba gacan ka caqdaran ay dishay. taasna insha Allah taala jannadii insha Allah taala ilaahay uga baryayna uguna rajaynayna insha Allah taala. Dr. Xasan Buurane wuxuu ahaa dhakhaatiirta waaweyn ee farakutiriska ah ee wadankan ku hartay buu ahaa, oo ama ajirtay ilaa hadda. maxaa yeelay dhakhaatiirta hore yani waaweynaa hore yani u socdeen. waxaa kaloo xusid mudan inuu ahaa dhakhtar ka mid ahaa dhakhaatiirta wadanka 30 sano aan ka bixin, ayagoo u adeegaya bulshadiisii, ka doortay soo aadi karaya adduunyada meel kasta oo aadi kara, si dhakhaatiirta qaarkood sameeyeen, inuusan u dhaqaaqin, go'aansaday in bulshadiisa u adeego. tan kale wax institution ah yani Dr. Xasan 30 sano oo yani dagaaladii kadib meel uu ka shaqeeyay. markii hore ciidanku ka tirsanaa oo muxuu ahay saraakiishii wuxuu ahaa Russia aaday oo ugu horeeyay oo ka soo qalin jabiyay Faculty of Medicine, wuxuuna ahaa yani ciidamadu ahaa. kadib waxaan isku baranay degmada Luuq markaan jaamacadda ka soo baxay. ayaan muxuu degmada Luuq asigoo maartay dhakhtarka ah oo la joogo maartay ciidankii meesha joogay. wuxuu ahaa yani dhakhtar aad iyo aad ugu fiicnaa xirfadiisa, bulshadiisana uu ahaa maartay runtii daacad u ahaa. sidii yani qabti markay dhacday ama dagaaladii dawladdii hore ee dhacday, intaa wixii ka dambeeyay Dr. Xasan Buurane يعني bulshada Soomaaliyeed unbuu u adeegaya sidoo muxuu ahayto dhakhtar caadi oo muxuu ahayto takhasuskiisna uu yahay dhakhtarka maqaarka ama dermatology. Allah u naxariisto Dr. Buurane wuxuu ahaa nin aad iyo aad. marka waxa su'aasha ay tahay si hadda laga dhawaajiyay waa ninkaasi wax institution uu ka tirsanay, meel uu ka tirsanay san jirin oo iskiisa u shaqaysanayay, meel kalena aan ku mashquulsanayn. su-aasha marka waxay tahay maxaa yani oo ku kasbaday, maxaa soo dhakhtar asoo haddana noocaas ceenkaas oo maaragtay yani shakhsiyadaas see wax u jiraan. dhakhaatiirta calaa kulli xaal runtii arrin waxay ku noqotay mafaaja'a maxaa yeelay dhakhaatiirta waxay ka mid yihiin birmageysada. maxaa yeelay ninka dhakhtarka waa tii la yiri ina almucallimu wadabiibu kilaahumaa laa yansaxaani idaa humaa lam yukrimaani. macalinka iyo dhakhtarka waa in يعني ما suurtoobaysa haddaana la karaamaynin. waa يعني maxaa ay to xirfadaha la soo qaatay ee karaamada gaarka ah wato in la karaameey ay tahay. marka guud ahaan barnaamijyada ka mid yihiin maxaa yeelay waa bulshada ay daaweynayaan, u adeegayaan, u dhawr adeegayaan, u rafaadayaan. weliba gaar ahaan Soomaaliya oo 30 sano weliba inta ahayd kuma sii dheeraanayo. Dr. Buurane Allah u naxariisto hadee maxaa ay to dhakhaatiirta Soomaaliyeed sida gudoomiyaha uu ka dhawaajiyay runtii waxay nagu noqotay mafaaji'a watan niri, balse waxaan aad iyo aad ugu tacsiyeenaynaa guud ahaan geeridaas. gaar ahaan waxaan soo gudbinaynaa sida aan uga xunnahay annagoo dhakhaatiirtii Soomaaliyeed oo weliba dhakhaatiirtii wadanka oo waaweyneedo wadanka u hartay oo weliba ahayd modelka lagu dayanayay in maanta yani la gumaado.
runtii waa arrin aad iyo aad walaahow iyo walwal ku dhalinaysa dhakhaatiirtii waddanka u hartay una joogtay iyo dhakhaatiirtii generationkii cusbaa oo dhallinyarada ahaa iyo da-da dhex ahaaba marka waxaan leenahay arrintaas runtii waxaan soo gudbinaynaa inaan aad iyo aad uga xunnahay aad iyo aadna dhakhtar bulshadiisa u adeegayay maanta in qudha laga jaro runtii waa meel ay ku qoran tahay male sharci qoraayana male muxuu ahayto diiniyanna haddee waaba midaan ognahay guud ahaanba yacni walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq waatuu ilaahay qur-aankiisa noogu sheegay subxaanahu watacaala marka waxaan leenahay allah u naxariisto waan ka tacsiyeynaynaa jannada la geeyo soomaalida iyo qoyskii uu ka baxay iyo ehelkii iyo caa'iladiisii iyo caruurtiisii iyo dhammaan soomaalida iyo dhaqaabahda caafimaadka guud ahaanna waa ugu tacsiyeynaynaa waxaan leenahay allah naga sabarsiiyo asigana jannada la geeyo wabilaahi towfiiq wasalaamu allahu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu